السلام عليكم أصحابتا kusoo dhawaada kanaalkeena mawduuceena maanta wuxuu ku saabsan yahay applicationada kuwaas oo lacag laga sameyn karo 2024 waxaa nool xilligan ama 2024kan waxaa jira more applications kuwaasoo lacaga badan laga sameeyo waqti xaadirkan applicationada lacagta laga sameeyo waxaa kow ka ah sida kuwa anigu aan xirfadooda leeyahay halkan aan waxa weeyaan kusoo gudbinaya maanta oo aqoon aan buuxdaan u leeyahay ka faa'iidaysi wanaagsan halkan baan kusoo gudbin doonaa leeyahay Fiverr, Upwork and Kick kuwaas baan halkan ku sharaxi doonaa maanta mawduuceenan qofkii dhalinyaro oo raba inuu waxa weeyaan ka sameeyo iyo dadka dhammaan freelancerska ah haddaba haddii aanu sharaxno waxa weeyaan applicationka koowaad ee loo yaqaano Kick qaabkii ayuu u shaqeeyaa applicationkani Kick wuxuu u shaqeeyaa qaab live ama live stream laga soo galo maalin dhaweyd baa waxa dhacday inaan saaxiib aan nahay baa wuxuu yidhi Kick ayaa waxaan ka sameeyey waxa weeyaan $1,500 muddo 7 cisho ah oo Kick oo live uu ku jiray marka Kick lacaga badan baa laga sameeyaa dadka aqoontooda inta badan waxa weeyaan waana la bartaa qaabka looga sameeyo oo Kick waxa weeyaan waa waqti xaadirkan waa one of the most waxa weeyaan powerful applications in the making money marka Kick aad ayuu muhiim u yahay waxa weeyaan making money from online Kick wuxuu soo bilowday waqti uu laga joogo hadda 3 years ayuu soo bilowday laakiin waqtigaa shirkadda Kick ma ogolayn in lacag laga sameyn karo applicationka sababo u gaar ah oo specialist u ah shirkadda Kick maalin dhaweyd waxaan eegay website-ka shirkadda ay leedahay Kick ay leedahay waxa ay lacag sameynta u ogolaan applicationka si ay iyagana u sameeyaan xayeysiin ama freelancing oo applicationkooda uu kula tartamo suuqa applicationada kale ee ku jira saas daraaddeed ayay ogolaadeen in Kick marka dambe uu qofku lacag ka sameyn karo lacagaha Kick laga sameeyana inta badan waa qaab waxa looga sameeyaa playing game iyaguna ay sameynayaan markaasi qofka ay qaab ay marketing ah oo qofka ay ku xayeysiinayaan alaabtooda iyo dhammaan big companies ay leeyihiin ay ku xayeysiinayaan shirkadda applicationka dhexdeeda qofkuna waa playing game oo qofkiina waxa weeyaan stream macnaha waa playing game kaas ayuu ka faa'iidayaa iyaguna way shaqaysanayaan oo qof applicationka inta qof karo qofkiina marka waxa weeyaan isagoo taxab bixinin ayuu applicationkaas lacag ka sameyn karaa applicationkeena labaad waxa loo yaqaanaa Fiverr waa one of the most powerful applications in the waxa making money because of millions of people ayaa waxay isticmaalaan shaqooyinkooda freelance ayaa loo isticmaalaa ama qaab freelancing ah Soomaalida ma fahansanin freelancing-ka berigii hore laakiin hadda aad bay ay soo fahmayaan maadaama ay qurbaha ku badanayaan applicationka Fiverr wuxuu u shaqeeyaa isaguna qaab freelancing ah oo shaqooyinka dadka ay rabaan ayay ku soo bandhigaa in loo qabto waxa halkaa ku diyaara shaqadii aad qabanaysay adigoo ah shaqaalihii doonay inuu shaqada qabto waxaad helaysaa shaqo diyaar ah laakiin waxaynu soo gudbin doonaa haddii rabbi idmo insha allahu muuqaalo kale oo qaabka ama Fiverr-ka loo soo helo win product waxa la yidhaahdo ama isla shaqadii qaabka Fiverr looga soo dhex helo oo aad u qaban lahayd waayo ma jirto shaqo diyaar ah oo Fiverr ka dhexelaysa markaaba inaad raadisay noqonaysaa markaad soo gashid markaad suuqa ku soo cusub tahay ee aad Fiverr soo geliso waxaa qofka looga baahan shuruudo badan oo qofku inuu skill leeyahay loo baahan yahay ama uu xirfad leeyahay si uu Fiverr uga shaqeeyo markaasi Fiverr needs only skill Fiverr waxay u baahan tahay qof xirfad leh Fiverr uma baahna qof bilaa xirfad ah taas meel ku qoro haddii aad Fiverr marka waxa weeyaan aad doonayso inaad ka shaqeyso ama aad waxa weeyaan qaab freelancing uga shaqeysato adigoo waxa weeyaan shaqadaada kalena iska wata marka Fiverr lacaga badan waa laga sameeyaa maalinkii ilaa $50 baa dhalinyartu ka sameeyaan aan asxaabta nahay laakiin waxay fahmeen waxa weeyaan qaabka uu shaqeeyo Fiverr iyo waxayna u leeyihiin skill and more skill fara badan iyo xirfad badan bay u leeyihiin waxay qabanayaan oo ay kaga professional yihiin dadka kale ee ay kula tartamayaan suuqa tusaale ahaan haddii aad maanta Fiverr rabto inaad ka qabato video editing-ka waa inaad ku tahay waxa weeyaan professional video editing haddii aad tahay beginner
kuma suuro gelayso inaad shaqooyin badan Fiverr ku dhex qabato sababtoo ah waxaa jira dad badan oo video editing ah oo kaaga aqoon badan video editingka kana waxa weeyaan qaban kara sidaad u qabatay shaqada si ka qurux badan bay u qaban karaan because of way ka xirfad badan yihiin wayna kaaga aqoon badan yihiin editingka saas daraadeed waa inaad tahay sida su'aalahaan kale graphic design haddii aad tahay ama certificate-kaagu yahay graphic design-ka haddii aad ku fiican tahay ama xirfadaadu graphic design tahay waa inaad leedahay aqoon buuxdo oo graphic design ah oo aad dhammaan macaamiisha ku jira Fiverr intooda badan kuwa design-ka raba aad waxa weyn kusoo jiidan karto oo aad soo bandhigi karto marka hore waxa weyn design fara badan oo aad ku baahin karto bartaada Fiverr-ka ku leedahay ka bacdina aad markaas ku baahiso oo Fiverr-kii aad saa ugu baahiso aad waxa weeyaan dadkii markay arkaan design-kaaga quruxda badan shirkadka ku jira Fiverr-ka oo raba in shaqo loo qabto aday ku soo codsanayaan markaas Fiverr-na way ni dhexeeyaa wuxuu Fiverr u dhexeeyaa qofkii shaqada loo qabanayay iyo qofkii shaqada qabanayay lacagtii halkaas buu qofku ku soo diray wad la heshiinaysa intaan mashruuca ama shaqada gudagelin bal qofkii kala hadlaysaa waxa weeyaan inta cishaad ku qabanayso shaqadan iyo waxa weyn lacagta aad ku qaadanayso Fiverr-na markaas wax yar buu ka goostaa laakiin qofka haddii uu u fahmo Fiverr-ka oo aqoon buuxda u leeyahay saas imkaan usoo sharaxnay oo kale Fiverr guul buu ka gaadhaa saddex sano waxa weyn ugula qabsadaa lacaga ugu horreeyna hore uga samayn karaa qofkaasi wuxuuna noqon karaa qof wax weyn ka xamaalanaya social media gaar ahaan Fiverr-ka oo freelancing ah oo dhammaan ay isticmaalaan hindida adduunka ugu badan iyo waxa weeyaan nimankan loo yaqaano Malaysiyaanka iyo dhammaan waxay isticmaalaan qaaradan Asia iyo Europe dhammaan waa laga isticmaalaa Fiverr sidoo kale Fiverr-ka ku darso wuxuu muhiim u yahay qofka lagama rabo shahaado shaqo maanta haddii aad tagto xafiis ama shirkad waxa laga yaabaa in shahaado lagugu xidho degree ama master nooca doonta ha noqoto laakiin Fiverr kuma xidhay qofka shahaadiisa horena soo sheegnay taa oon soo xusnay Fiverr wuxuu kugu xidhayaa skill-kaaga iyo aqoonta aad u leedahay waxa weyn shaqadaad qabanayso taasi oo aad soo bandhigayso waxa weyn skill-kaaga ka bacdina aad ku helayso shaqooyinka Fiverr-ka uu bixinayo oo si dhaqso hadda imika waqti xaadirka u noqonaya one of the most powerful in the waxa weyn making money waa mid ka mid ah waxa weyn application-ada ugu xawaaraha fiican ama ugu dhaqsaha fiican ee dadku ay inta badan lacag badan ka sameeyaan Fiverr-ku labada application maanta mawduuceena kusoo afmeeraynaa Kik and Fiverr haddii aan isbarbar dhigno labadan application keebaa ku fiican in lacag laga sameeyo keebaana ku fudud waxaa u fudud Fiverr waa fudud maxaa yeelay Fiverr skill kaliya kaaga baahan yahay lacaga xad dhaafna oo laga sameeyaa $100 maalinkan asxaabta qaar baa ka shaqeeya oo naqaano qaarkood 50 bay ka shaqeeyaan qaar 30 bay ka shaqeeyaan kuwa bila camalka iyagu lacag badan bay ka sameyn karaan maalinkii oo aad xad dhaaf u ah